بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الله وين نكي آمنا، الله وين نكي آمنا أوله ومضوالي با آيدا إني كرته إيدا له سودو هذا آديات بان الإسلام يا ملك السوء شوكتان وحن رجينا يا إناد ملك السوء شوكتان أتكون بالضبطان وحوغا محمد معي maanta markaa inaan idila wadaago dhir geedahani waa geedihii reer magaalka macnaha qofka guri qurux badan leh ama boos leh oo aan weli dhisanin geedo uu ku sii beeranayo markuu dhisana haddii ilaahay yidhaahdo uu geedihii harsan doono geeda aad iyo aad u qurux badan very beautiful oo geedihii reer magaalka ah oo isugu jira laba nooc waa geedaha markaan laba nooc leeyahay geeduhu way fara badan yihiin markaan laba nooc baan kusoo koobayaa waa geedaha geed miroodka la yidhaahdo ee midhaha la manaafacadsado ee la cuno sida babaayga saytuunka afkaadhada rumaanka etc iyo wixii lamid ah geedaha waxa la yiraahdaa geedaha midhaha ee la manaafacadsado geedana waa geedaha hadhka kuwaasna geedaha hadhka la yiraahdaa qayb kalena waxa la yiraahdaa geedaha xaragada macnaha geedaha qaarkood waa very beautiful aad iyo aad u qurux badan geedahan hadda aan idinku hayo kamarada waxa la yiraahdaa geedaha hadhka marka inta aan ka gaaro ayaan idinku soo leexinaya idin tusaya qof walba marka halkii ka anfacda ka dhaxgal nooc kasta oo tahay ku aan guri lahayn mid wada degan mid aan wada deganayn whatever you are meesha doontaba joog meeshuna waa geeska Afrika waa hagaag aan geedaha ku leexiyay marka geedkan waa geed xareed geedahana waa geed mirood waa babaay wakaas waa babaay geedahan aan ku yaqaado geedahan waa geedaha xaragada geedkan marka soo yartaawato aad fiiriso waxaad u malaynaysaa caag artificial geed ma garanaysa waxaan geed ba ahayn oo wax la soo sameeyay oo kaleeta waa geed marka saas u baxaya layers waxaan waa layers waa dabaq kala hada layersku waa English dabaq buu u saaran yahay markuu baxaba saas wadana sameynaya haddana sidaas u sameynaya taa u koreysa wuxuu haddana layerskii waa bilowday halka u koreysa ayuu haddana ka baxaya kuwana waa laamihi waa geed aad iyo aad u qiimo badan oo geed reer magaal very beautiful way gurigaaga beertaada sandaqadaada guriga aad dhisatay nooc doonaba ahaadee ama beertaada waad ku beeran kartaa saa u daawatooda qurux badan geedkan isna waa geed reer magaal oo kaas u baxaya markuu dhulka nafaqadiisa dhulka markii la geliyana geedkan dabayl iyo bood iyo waxba ku yar dhacay oo midabkiisa yar cadaan ka yar dhigaya wuu madoobaanaya wuu cagaar rib oo adag buu noqonaya waa very beautiful geedkan waana iib geedahani dhammaantood waa iib geedahan iyaguna waxa la yiraahdaa gabra
gabra la yiraahdaa asna sida kii oo kale u baxaya layers buu leeyahay saas isu dul fulfulaya asagoo dabaqyo yeelanaya geedkan meesha idin yaala waa cambalaf waa geed talaalan asagoo inta la eg ayuu bilaabay inuu midhihi soo saaro baxo marka dhulka baa la gelinaya inta dhulka uu la gelinayo kaliya ka soo xigta kana asaguna waa geed reer magaal waa geed xarago hotelka albaabada receptionka meelaha laga gelayo meelaha kuraasta taale ee dadku ay ku nastaan ku shaaheeyaan ama iskaga wada sheekaystaan breakfast shelterka ayaa la geliyaa waa kan isagoo weyna waa kan isagoo weyna waa kaas geedkani asaguna saas u baxaa wuxuu yeelanayaa laan geedkaas oo kale ayuu u baxayaa isaguna waa geed aad iyo aad u qurux badan very beautiful geedkani waa geedii romantic waa jacaylka waa geedii jacaylka geedkan marra waa dawa la yiraahdaa meelo badan baa loo cunaa qofku markuu dhinac u yarbato dhalinyarada cuslaatay uu noqdo aad u isticmaalaa geedkan kuna waa u bixi kan asna waxa la yiraahdaa yellow fruit la yiraahdaa raalliga ahada niyo geeda inta badan Soomaaliba kuma aqaanay raalliga ahada hadii aad timaado laakiin Soomaali iyo waxun bay isku jajabina waxun baad ku fahmi doontaa geedahna waa geedihii u bixi weeyaan waa flowers agaag geedkan calan qurux badan u shaad dheer buu noqonayaa waana geed asaguna geed hareed waana geed xarago asaguna halka waxa yaala mooski moos ama banana geedahan kale ayaguna halkan yaala waxay isugu jiraan avocado iyo cambalaf geedkan kalena waa dacar laakiin dacartii ma aha miyiga Soomaaliya ka bixi jirtay ma aha waa dacar yar nooc kala ah geeduhu aad iyo aad u farabadan yihiin wataas waa beer camal ayo kale geedahaas waa rosemary iyo saytuun ay soo dhex jiraan geedkan fruta la yiraahdaa asna waa geedaha reer magaalka kuwa halkan yaala waa canabki ayaguna geedkaas asna sida duurtu baxa geedka dheer ee quruxda badan waa geedaha reer magaalka geedahana waa flowers asaguna waa hagaag ilaa xagga way yaalaan waa kuwaasina waa geed hareed ayaguna geedkani wuxuu noqonayaa guryaha maartay G+2 oo kale uu la ekaanayaa waa geedaha had marka ayagu markii laga shaqeeyo la waraabiyo biyo fiican la siiyo si fiican loo beero waa ka hoos kicin geedkana waa kaas isaguna saas u baxaya waa geed reer magaal xagga waxa taala liinti xagga dambana liinti baa taala qof kasta oo jecel gurigiisa inuu ku nasto oo ku raaxaysto oo geedo midho leh uu ku beerto geedo hadh leh uu ku beerto diyaar baa loo yahay aan ka caawinaynaa dad aqoonteeda leh professional ah oo in badan dhirta ka shaqeynayay ayaa ka shaqeynaya kameradan idinku leexinaya markaa geedaha waaweyn bay hoos yaalaan waa lagu dhaqaalaynayaa waa la duweynayaa geedka waa lagu daweynayaa xataa haddii geeda kugu yaalaan gurigaaga laftooda waa lagu daweynayaa waa lagu jarayaa waa lagu qurxinayaa macnaha loo yeelayaa geedkaaga geed weyn oo foolxun oo xaafadda iska dhex yaala ma noqonayo dad aqoonteeda leh baa markaa kaaga shaqeynaya dhagaystayaal maqlayaal iyo arkayaal inta maqlaysa iyo inta arkaysa iyo inta dhageysanaysa
iyo inta jecelba inay ay tagaan ama ay joogaan meel greena waa laydin hayaa oo dhir ah qiimahooduna wuu kala duwan yahay nooc walbay leeyihiin soo dhowaada waa laydin qancinayaa discount baa laydin samaynayaa waa qiimo dhimis baa laydin samaynayaa geedo fiican oo meesha aad u gadanayso suitable macquul ku ah ayaa laydin siinayaa haddii ilaahay yidhaahdo annagaa idiin beerayna ciiddii dawadii iyo xanaanadii 2 bilood markii geedaha lagu beero 2 bilood annaga gacanta ku hayna geedahaas markay dhulka qabsadaan ay cabbaan ay soo fiilaan oo dee dhulka galaan ilaa hadda dhulka kuma jiraan baco waaweyn bay ku xidhan yihiin xididkii oo dhan bacdaa weyn buu ku duuban yahay laga sii daayo uu nafiso ee geed meel lagugu beero waa jiifoo jaq waa ka hoos kicin marka waxaan kula talinayaa inta daawanaysa iyo inta arki doonta iyo inta jecel inay yimaadaan halkan waxay ku taallaa galbeedka magaalada Jigjiga bariga magaalada Jigjigana way ku taallaa meeshan oo kale beertan oo kale labada meelood oo ku leeyahay waa udug nursery halkani udug nursery qaybtii labaad weeyaan qaybtii koobaadna xagaas ku taallaa waa galbeedka iyo bariga kale wadada weyn laamidina way hormartaa shaarica especially reer Jigjiga reer East Africa Soomaaliya maamul goboleedka doonta ahow waa lagu soo dirayaa gaadiidku meel kasta uu ka tagaa halkan meeshan waa magaalada Jigjiga gaadiidka halka dhirta kaaga qaadaa wuxuu ku geenayaa Somaliland qoladii dhex maxay ahayd waqooyi galbeed SSC baan u aqaanay waqooyi galbeed wada xogaaya jaqis bay uga gashaabe waqooyi galbeed Puntland mudug galmudug ilaa Muqdisho ayay dhirtani tagtaa gaadiidku halkan way ka baxaan waa lagu soo saarayaa wixii markaa tala ah inquiry wixii aad doonayso inaad ogaato more information wixii aad doonayso akhbaar saa'ida aad doonayso diyaar baan kula nahay halka Facebook aad ku soo qoraysaa ciwaanka halkaas aad ka helaysaa waa lagu soo dhaweynayaa si walaaltinimo leh af Soomaalina waa lagu hadli doonaa aad ku qanacdo ayayda aabaha wiilka yar dhalinyarada qof kasta waa la qancinayaa hadii Ilaahay yiraahdo shaqaale aad iyo aad u jajaban oo baariina oo wixii markaa adigu aadan fahmayna ka caawinaya ayaa diyaar ku ah halkan magacaygu waxa weeyaan Nuuraddiin ama Sheef Nuuraddiin kulli waxaan maleynaa Sheef Nuuraddiin baad ugu taqaaneen imika sheefkii dhirta haddana igu barta Afrika waxa waa laga helaa Afrika inaga cilmi badan sheekhna sheekh buu dhalaa sheefna sheef buu dhalaa tuugna tuug buu dhalaa waa la isku raacay basbaaskiina waa kan uu iska baxayba waa ka basbaaskiina very hot weeyaan in Afrika geeska East Africa gees basbaaska numba ka baxa laakiin basbaaska ilaa 5 nooc oo kala duwan baan ka aqaanaa mid cunisdaay hadaa taaba gubanaysaaba kaas weligii ma arkin kaas oo kale waa la yaabaaba ka waa ka basbaaska Afrikana East Africa waliba Soomaalida basbaaskiisina waa basbaaskoodiina waa loo hayaa geedkan guryaha la dhigtaa geedahan waxay isugu jiraan aan idin sheegay indoor outside outdoors gudaha guriga gudihiisa fadhiga ama qolka iyo banaanka shaarica labadaba waa la dhigaa wayna kala duwan yihiin taana waan ka caawinaynaa laga yaabaa inaadan kala garanayn kan ma gudaha la dhigaa ama banaanka la dhigaa taana waa laga caawinayaa waa free open wax kasta oo doonayso waa lagaaga jawaabaya oo dhirta ku saabsan aad iyo aad baan idin salaamayaa khiyaaray soo dhawaada mar labaad baan idin ku celinayaa magacaygu waa Sheef Nuuraddiin Maxamuud barasho wanaagsan khiyaaray aqoonta iyo horumarinta deegaanka iyo dadkeenaba diyaar baa loo yahay idinkuna dhirta barta ya aan la yar kaftame dadka qaar baa malaha waxay yaqaaneen dhirtii ay xooluhu cunayeen marka Ilaahay baa u sakhiray waxoogaa yar oo lacag helayo guri yar oo qurux badan uu sameystay oo cheap plus 3 ama 2 ah dhir buu markaa waxa lagu dhir baa lagu beeraa meesho marka mararka qaar kood way yimaadaan kaasoo kooran kan magicii
waad u sheegaysaa xooluhu may cunaan dadku miyay cunaan miyaa la hadhsadaa mise lama hadhsado muxuu taraa qofka su'aalahaasoo kale markuu ku weydiinaya lamana yaabno laakiin waa aqoonta halkaa gaartiisa aniga laftayday taasi soo martay geedkaas waa geed xarraga asaguna very beautiful wuxuu isugu jiraa pepper iyo green laba nooc buu samaynayaa waa geed aad iyo aad u qurux badan dhulka markii la geliyo biyaha laga dhigo dhulkana loo jilciyo kasii jeedsan maysa indha kuulba uma baahnay geedihii meekaabkan ku jira iyaguna waa xagga dumarka qurxinta jirka la marsado waraa biyo kan biyo waxaa jira geedihii qurxinta oo jirka la marsado ama la cunaba oo fruit ma ah laakiin waa kuwa jirka la mariyo sida gobkii oo kaleeto dacartii oo kaleeto qajaarkii oo kaleeto kukumbarkii oo kaleeto qajaar iyo kukumbarta loo isku mid ba I don't know ma garanay liintii liin macaantii liin dhanaantii liin qarboshtii waa geedaha la cuno afakaadadii hadda geedkana waa afakaado kaasina waa afakaado kuwana waa cambalaf iyaguna saytuunkii waan intusay geed aan aad iyo aad ugu yaabay oo soo jiray meelaha laga helana hadda wuu yimid u yaalaa waa strawberry waa beautiful strawberry weeyaan oo midho waaweyn oo natural ka soo baxay inta midhiisu leeyihiin oo soo bixi doona midhaha waa inta doona wuu yaalaa canabkii baa yaala canabkuna waa dhowr nooc ma garanaysaa anoo hadda ilaa 3 nooc baan ka aqaanaa laakiin meelaha waxa ku yar badan halka nooc hadda 2 nooc baan ka soo dhignay madow iyo cadaan ama pepper weeyaan markuu bislaado cadaan buu yarag yahay cadaan light bright oo xoogaa biyo marka dambe wuxuu noqonayaa black buu noqonayaa geedkaas waa geed ubax asaguna aad iyo aad u qurux badan ubaxii buu soo tuuray haddaan u dhaweeyo uu leeyahay ubaxii laakiin aqoonta dadka lagama wada xasto geedkan baan doonayaa wax yar inaan sharaxo geedkan Soomaalida aad buu ugu badan yahay positive-kiisa iyo negative-kiisa labadaba inaan idin sheegan jecelahay waa kan qayb ubax buu ka leeyahay cad qaybna wuxuu ka leeyahay ubax cas labada markaad isku darsato very beautiful weeyaan customer baa igu soo socda oo soo gabagabeynaya marka geedkaas caruurta iyo dadka xanuunsanaya dad waaweyn oo xanuunsanaya jira ma aha in loo dhaweeyo geedkaasi waa khatar weeyaan aad baan idin salaamaya akhyaaray soo dhaw walaal